قرحمو libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn kula wanaagsan saaxiibayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga toddobaadkii barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda haweenka ee ku aadan doorashada qofka guursanaya mowduucan wuxuu diiradda saarayaa in la fahmo sida ay shareecada islaamka u dhowrtay xaqa ay haweeneydu u leedahay inay doorato qofka guursanaya adilada sharciga ee cadeynaya dhowridda xaqa doorashada haweenka saameyn sidee ah ayuu ku yeelanayaa haweeneyda maskaxaan iyo bulsho ahaan haddii haweeneyda ay heli weyso xaqa doorashada qofka ay isguursanayaan sidee loogu dhiirigelin karaa bulshada inay ka qayb qaataan dhowridda iyo difaacidda xaqa haweenka ee doorashada qofka guursanayo martida barnaamijkuna waa sharciyaqaan Cismaan Cadceed ku soo biir wada hadalka kuna soo dir aragti iyo su'aalo wixii kaaga baxa nambarada idaacadda oo kala ah eber 619 62 ama eber 619 62 waxaan nagala qayb galaya asxaabta kala ah Ciise Maxamed Nuur Zamzam Abduqaadir Ibrahim Xasan Umar Farax iyo Ayaan Maxamuud Cabdi mar kale ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda dib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray ma jeclaan lahayd in laga caawiyo ama lagala taliyo haddii ay jawaabtu tahay haa fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho hagaag barnaamijkeena waxaan ku lafagureynaa xuquuqda haweenka ee ku aadan doorashada qofka guursanaya waxaana sharaxaad buuxa inaga siin doona sharciyaqaan Cismaan Cadceed waxaan jecelahay marka hore inaan soo dhaweeyo kadibna uu inooga waramo sidee ay ahayd xuquuqda haweenka ee ku aadan guurka islaamka ka hor bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay maxamed qadar iyo dhamaan baahda himilo iyo martida kale ee barnaamijka fadhido islaamka ka hor iyo xuquuqda ay haweenka ay lahaayeen iyo sida ay u dooran jireen waxaan u kala qaadi doonaa dhowr qaybood society-gi dunida ku noolaa way kala duwanaayeen waxaan ka fiirin doonaa carabtii hore iyo sida ay u ilaalin jireen waxaan fiirin doonaa boqortooyooyinkii dunida ugu waaweynaa ee ka jiray ee Romankii iyo Greega ahaa iyo masaarida oo ahaa Afrikada marka la fiiriyo wadamada carabta dadka ugu ilbaxsan iyo sida iyagana ay xuquuqdaas ay u ilaalin jireen marka ugu horeyso marka aan fiirino xuquuqda haweenka in la ilaaliyo oo ku saleysan maxaa la dhahaa inay doorato qofka iyada ay nolosha la wadaagayso oo odageeda noqonaya way ku kala duwanayeen sida aan sheegay society ama bulshada caalamka ku nool dhaqamada iyo kaljaradana way kala duwanaayeen bulshada qaar waxay ogolaayeen inay haweeneydu xaq u leedahay inay doorato qofka iyada nolosha la wadaagaya si xor ahna ay leedahay halka kuwa kale ay xadidneed xuquuqaha la siinaa ama aysan bajirinba xuquuqa ay siiyaan wadamada carabta markaa fiirino xilligii jaahiliyada lagu jiray islaamka ka hor iska daa xuquuq ay gabadha leedahay oo la siiyo inay ninkay guursanayso dooratee waxay la eedba xaqa nolosha oo ahaa xuquuqda basic ee ku nooleed waxaan xasuusanaa xilligii jaahiliyada la sheegaa taariikhaha markaa akhrisid in la aasi jiray gabadha marka ay dhimato iyadoo nool in la duugi jiray marka meeshaas waxaa kaaga cadaanaysa basicgii xaqi nolosha ahaa ayaaba meesha ka maqnaa iska daa xuquuq kale oo ay ku doorato qofka ay guursanaysay marka aan fiirino wadamadii Romanka iyo Greek boqortooyooyinkii ee oldiga ah ama ancientiga ah markaan fiirino qadiimiga ahaa waxaa jira article laga qoray oo la dhaho rights of women in ancient world la dhaho article-kaas wuxuu sharaxayaa xuquuqaha si guud ee haweenka u lahaayeen marka loo fiiriyo boqortooyooyinkaas oo ahaa Romanka iyo Greegi si gaar ah hadda marka aan fiirino xuquuqda aan dul taaganahay oo ah xaq ay haweeneyda u leedahay inay ku doorato odageeda ama qofka guursanaya ku doorato way ku kala duwanaayeen labadaas boqortooyo nidaamka ay isticmaalayaan markii la joogo Greegi hore waxaa la dhihi jiray go'aanka waxaa iskale gabadha aabaheed
ama waxaa yeelanaya maxaa la lahaa haddii aabaheed la waayo nimanka kale ee qaraabada la ah. markaas qaraabada waxay soo gelinayaan walaalihii iyo adeeradii iyo dadkaasaa go-aan ka yeelanaya. iyada go-aan ma lahan ay ku guursato, qofkii loo soo xulay qaadanaysaa. go-aankana maxaa la lahaa markii la fiiriyo wuxuu xooga saari jiray iyaga qofka ay u arkaan rabitaankooda inay ku daraan. si la mid ah marka aan fiirino roomaankii iyagana ka mid ah boqortooyooyinka waaweynaa ee dunida ka jiray, inta badan waxaa qaabeyn jiray maxaa la dhahaa guurka sida uu u dhacayo familada, ogolaanshaha maxaa la dhahaa labada dhinac ama wiilka ha ahaado ama gabadha ha ahaatane wax laga maarmaan ah ma ahayn. marka xoog waxaa la saari jiray familka mis ogol yihiin, kadibna guurka saasuu ku dhaqangeli jiray. Egypt oo aan sheegnay inay ka mid ahayd wadamadii qadiimiga ahaa ee dunida horumaradooda qayb ka qaatay, laguna sheegay taariikhaha islaamka iyo taariikhaha dunida oo dhan lagu sheegay, haweenka iyaga waxay ku lahaayeen more freedom ay ku lahaayeen inay doortaan marka laga hadlayo husbandkooda ama qofka ay nolosha la wadaagayaan. xitaa mararka qaar waxay xuquuqo kaloo dheeraad ay lahaan jireen oo ah inay u doodi karaan xitaa haddii ay guurka ku qanci waayaan inay furiin iyaga dalban karaan. xaq noocaas ayay lahaan jireen. isku soo wada duub marka waagii hore ma jirin ama xuquuqaas marka laga hadlayo ma ahayn wax universal ah oo dunida dhan ay iska waafaqsantahay ma ahayn. society walba ama bulsho walba oo caalamka ku nool waxay leedahay culture gooni ah, culturekaas goonida ahayna ku dhaqmi jirta ama ay u qaadan jirtay. Soomaaliya markaa imaatid waagii hore iyada waxaa waaye qadiimiga ahaa iyo dhaqanka hadda ka jiro koley waa iyadana waa isla fiirin doonaa, laakiin si guud xooga loo saari jiray familada iyo rabitaankooda. waxay nooga sheeg shareecada islaamka siday u dhowrtay xaqa ay haweeneydu u leedahay inay doorato qofka guursanaya. waa mahadsantaha mar kale. shareecada islaamka mansab weyn ay dhigtay marka laga hadlayo xuquuqda ay yeelanayaan bini aadamka si guud. si gaar ah waxaa la ilaaliyey maxaa la dhahaa xuquuqda haweenka ay yeelanayaan, gaar ahaan xoqa ay qofka ay u yeelanayso qofka nolosha ay la wadaagayso. shareecada islaamka waxay ku beesgaraysan tahay qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga maxamed sallallahu alayhi wasallam. halkaas marka waxaa ka muuqata islamic culture marka laga hadlaayo sida adilooyinka iyo sunnooyin imaan ku arki doono daliilada qur-aanka iyo sunnada iyo lagu arki doono in ay xooga saartay martabad sarana ay geysay in qofka uu xaq u yeesho qofka uu nolosha la wadaagayo ama odageeda noqonayo inay xaq ay u yeelato inay doorato iyada. oo maxaa la lahaa haddii daliilada aan sii raaciyo kale markaa fiirisid waxaa jirta suuratu nisaa aayadda 4 oo ah suuradda 4 ee qur-aanka aayadda 19 waxay leedahay dadka ilaahay rasuulkiisa rumeeyay waxaa laynka mamnuucaya inaadan ku qasbin haweenka wax aysan rabin. ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarithu nisaa karahan ay leedahay. sidoo kale waxaa jira axaadiis ka sugnaata suubanaheena maxamed sallallahu alayhi wasallam. xadiis waxaa jira saxiix al-Bukhariga iyo saxiix Muslim labadaba ku sugan oo ka hadlaya nikaaxa, gaar ahaan ka hadlaya dooqa gabadha ee u yeelanaysa inay guursato qofkeeda. qofka macnaha inay dooqato qofka ay guursanayso. wuxuu tilmaamayaa nikaax ma ansaxaayo laa tankixul bikra xataa tasta'dan wala tayyib xataa tastamar. macnaha haweenka oo bikrada ah guurkeeda ma nikaaxsamayso ilaa iyada ay ogolaato. midda maxaa la dhahaa tayibada ah oo carmalka ahna ilaa iyada ay amarto oo ay dhahdo waxaa waaye waa ogolahay la ii guuriyo, guurkeeda ma ansaxma. taas marka waxaa waaye mansab weyn oo diinta iyo shareecada islaamka ay dhigtay maxaa la dhahaa guurka iyo qofka sida uu u dooranayo qofka lamaantiisa. sida gaar ahaan hadda mawduucan ka hadlayno ah haweenka xaqa ay u leedahay inay guursato. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa la weydiiyay marka idanka soo noqonaya leeyahay qofka bikrada ah, maadaama marka waxaa lagu tilmaamayaa xishoodka iyo aamusnaanta markay qaadato oo ay aamusto gabadha gudaha ku cararto kale iyo ka xishooto in loo qaato inay raali ay ka tahay in loo qaato. waxaa kaloo jiro xadiis kale oo Qasna binu Khidma ay warinayso ay leedahay waxaan u tagay rasuulka sallallahu alayhi wasallam aabaheeya i weydiiyay ugu daray nin aanan rabin. kadib rasuulka u tagay sallallahu alayhi wasallam waxaan u sheegay inaan ku qanacsanayn guurkaas. wuxuu ii sheegay inaan leeyahay joyska ama dooq inaan leeyahay oo
ah inaan doorto oo guurkii wuxuu aabahay ii sameeyay aan sii qaato iyo inaan ka tago oo aan maxaa la dhahaa guurkaas invalidated aan ka dhigo. marka iyadoo waxay ahayd sida ay wariyaan xadiista kale tayyibay ahayd ama carmale ahayd. markaas waxaan dhahday rasuul Allah sallallahu alayhi wasallam waa ogolahay wuxuu aabahay uu ii jiday, laakiin waxaan rabaa inaan ogaado in aabaha ama dadka aan ogeysiiyo in aabaha uusan xaq u lahayn in uu u dooro maxaa la lahaa qofka ay guursanayso gabadha inuu u dooro. intaas bas inaan caddeeyaa rabay ayay tiri, laakiin waa ogola. marka halkaas markaa ka fiirisid islaamka wuxuu dhigay boos xoogan oo tilmaamaya xuquuqda gabadha ay u leedahay qofka ay guursanayso ama rabitaankeeda inay ku guursato. xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha xuquuqdan siday u dhowreen? sida haday aan ku xusay waxaan tilmaamnay in waagii hore ama xilligii qadiimiga ahaa inaysan xusnayn, inay jirtay cultureska iyo society-ga bulshada inay waxaan ku saleysnaayeen oo aan xoogga la saari jirin waxaan universal inay yihiin ama caalami inay yihiin. dunidu waa hormartay, heshiisyaa la galay, conventionsaa la sameeyey, xuquuqaa la qoray, dan waxay noqotay mabda universal oo noqday inuu mamnuuc yahay in guurka la isku qasbo. beesha caalamka iyo heshiisyada caalamka waxay door muhiim ka qaateen sidii sare loogu qaadi lahaa loona ilaalin lahaa xuquuqda haweenka ay u leeyihiin si ay u doorato qofka lamaanaha la noqonayo ama nolosha la qaybsanayo. waxaa jira conventions oo global ah, macnaha heshiisyo caalami ah jiraan. waxaa kaloo jiro baaq caalami ah oo loo yaqaan Universal Declaration of Human Rights ama UDHR loo soo gaabiyaa. waa dukumentiyada aasaaska ah marka laga hadlayo guud ahaan xuquuqda aadanaha iyo sharafka qofka bini aadamka. qodobka 16aad isagana wuxuu ka hadlayaa in ragga iyo haweenka ay xuquuq siman u leeyihiin marka ay timaado guurka, isla markaana ay aasaasanayaan family keliyana guurkooda uu dhaqangal noqonayo markii ogolaansho dhameystiran labada dhinac laga helo. waxaa jira baaq kale oo caalami ah oo ICCPR loo yaqaano ama International Covenant of Civil and Political Rights. wuxuu ka kooban yahay marka qodobo fara badan. waxaa naga qusay qodobka 13aad wuxuu sheegayaa xuquuqda haweenka iyo ragga ay u leeyihiin maxaa la dhahaa inay sameystaan guur, inay galaan oo guri ay sameystaan iyo rabitaankoodii ogolaanshahooda labada dhinacba inuu ka simo. markaa fiirisid baaqyadaas dhan ee caalamiga ah oo dawladaha caalamka dhan ay ku mideysan yihiin, waxaa halkaas kaaga soo baxayso in dunidu ay degsatay framework ama qaab dhismeed lagu ilaalinayo xaqa haweenka ay u leedahay inay ku doorato qofka odaygeeda noqonaya. conventionkan ama heshiisyada caalamiga ahna waxay kulligood tilmaamayaan in free consent ama ogolaansho dhameystiran laga helo labada dhinacna ay equality u siman yihiin markii la rabo in maxaa la lahaa la doorto qofka qof kale lamaanaha la noqonayo. marka la eego dhaqanka Soomaalida sidee buu u ilaaliyaa xaqan? dhaqanka Soomaaliga ah wuxuu ku saleysnaa in waalidka oo mar walba waxa uu ka shaqeynayo marka xitaa guurkan forced marriage waalidku uu sameynayo wuxuu ka fikirayaa gabadhaada xagee u roon. laakiin taas mid cagsigeeda wuxuu duudsiinayaa xuquuq islaamkan oo u jideeyay maxaa la dhahaa shuruucda caalamiga ahna iyo sharciga Soomaalida ee leedahayba ee u jideeyeen oo duudsiinayaa. marka Soomaalida dhaqankeeda wuxuu ku saleysnaa in gabadha waalidkeed ay u dooraan qofka ay la doonaan. dhaqan oo inta badan soo jiro ah diidmana inta badan kama imaan jirin oo conceptigaas ama aragtidaas waa la isla qaatay. waqtiyadan dambe marka waxaan u maleysaa gabadha rabitaankeeda in lagu saleeyo. marka sababo waxaa jira waalidka ku riixayo inuu gabadha u dooro ama uu guurkan uu macnaha uga dhigo forced marriage uu uga dhigo. waxaa kamid ahaa financial oo kale dhaqaale ahaan inuu fiiriyo qofkan ma ku filan yahay gabadha, ma buuxin karaa booskaas inuu halkaas ka fiiriyo. waxyaabaha la isku xulin jiro waxaa kamid ah qofkan geesi ma yahay oo kale iyo nabadoon garyaqaana ma yahay iyo kale, qofka marka garta u dhigdhigi karo, macallin ma yahay oo kale, qofkan nin wadaad oo cilmi leeyahay ma yahay. macnaha waxyaabo badan oo faa'iido ah waalidka markaas oo arkaan ay ka fiirin jireen iyagoo macnaha fiirinayaan meesha ay isleeyihiin caruurtaada way u roon yihiin. laakiin dhaqanka Soomaaliga totally waagi hore wuxuu aad uga soo horjeeday inuu buriyo xuquuqo shariicada islaamkana ay jideysay, shuruucda caalamiga ah ee dunida aan ku noolnahayna aan ku dhaqanahayna ay jideeyeen, kuwa anaga noo qoranna
ay jideeyeen. marka la eego dastuurka Soomaaliya iyo sharciga kale ee Soomaaliya waa maxay qodobada sida gaarka u tilmaamaya xaqqa ay haweeneyda ay u leedahay inay doorato qofka guursan lahaa? hagaag dastuurka Soomaaliya waxaa haysanaa dastuur qabyo ku meel gaar ah. qodobka 18aad ee fiirisid wuxuu ka hadlayaa daryeelka qoyska. qodobka 18aad faqradiisa 5aad wuxuu leeyahay guur ansaxaya ma jiro haddaan si xor ah iyo ogolaansho ka timaada ninka iyo gabadha haweeneyda ka timaada aysan jirin. labaduba waa inay gaaraan da'da guurka. marka halkaas waxa kaaga cadeynaya qodobka Soomaaliya ee dastuurka Soomaaliya ee ku meel gaarka aan haysan qodobka 18aad faqradiisa 5aad in uu macnaha jideynayo ama uu tilmaamayo guurkan la isku qasbay inuu yahay prohibited ama mamnuuc inuu yahay oo aan la isku qasbi karin. waxaanu ku xiray inay jirto ama la rabo in la helo rabitaan ka yimaada labada dhinac in ka yimaada. dastuurka Soomaalida ku meel gaarka ahaa ee hadda aan ku dhaqanaa fiirisid dhammaantood waxay mamnuucayaan guurka la isku qasbo. waxayna ogol yihiin in maxaa la dhahaa guurka uu ku ansaxayo kadib markii la helo ogolaansho ka yimaada gabadha iyo ogolaansho ka yimaada wiilka markii la helo kadib in guurkaas ku ansaxo. marka waxaan siinayaa ka qaybgalayaasha waxa ugu horeysa Zamzam Cabduqaadir Ibraahim. Zamzam soo dhaw su'aasha aad weydiin lahayd sharci yaqaan Ismaan Cadceed. waa dhawahay magacaygu waa Zamzam Cabduqaadir Ibraahim. su'aasha qaban waxaa waaye sidee ay maxaa ka dhalan karta yani gabadh inay guurka loo qasbo saameyn sidee ku yeelan kartaa? waa mahadsantahay Zamzam. su'aal muhiim waaye oo meesha ku jirta. saameynta marka laga hadlayo dhowr dhinac laga fiiriyaa. mid waxay saameynay horta qofkii qasabka loogu guuriyayna saameynay ka dhalanayso, saameynay soo gaarayso. dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacaysaa qofkii maxaa la dhahaa qasabka lagu guuriyay. marka loogu guuriyay laga guuri macnaha gabadhii iyo wiilkii waa. marka koowaad hadaan fiirino saameynta soo gaari karta qofka qasabka loogu guuriyay oo ah wiilka gabar uu qasab ku keensado guriga loogu keenay laba siyaabood waaweyn ka dhalanayso. marka koowaad dayac gurigiisa ku imaada ka dhalanayo iyo hantidiisa because of qof aad qasab meesha ku keentay oo kula joogta waxaa wuxuu bilaabayaa sidee qofkan aad uga tigi kartaa. marka wuxuu isku dayayaa tilaabo walba oo hantidaada dhibaato ahaan ku saameyn karo. biila dhiibanay wax lagu karinayo male. raashinkii daadsana oo imaanay guriga albaabkiisa furan yahay laga seexana guriga dad ama ilmo iskaga ciyaarayaan arkay. soo marka wuxuu noqonayaa saameyn oo dhinaciisa taabanayso. dhinaca kale marka aan fiirino saameynta ugu weyn gabadha la qasbay ay ku yeelanaysaa. marka koowaad dayacaadaas gabadha dhinaceeda ka yimaada wuxuu sababi karaa is-afgaranwaa iyo muran soo kala dhexgal labada dhinac. taas waxay sababay marka gacan ka hadal inay gaarto oo gabadhii dhibaato loo geysto. marka dayacaadii wixii sameeyay wax oo dhacayna waay waaqic marka laga hadlayo wax dhacayo Soomaaliya ka dhacaan waay. qofka marka wuxuu isku dayayaa inuu xabsiyeeyo inuu gabadha guriga ku xiro. wuxuu isku dayayaa inuu xakameeyo ilaa xad uu macnaha uu dhaho ilaa aad ka noqonaysid raaliyo saasa lagu sawaan. taas maxaa ka dhalanaya marka? taas waxaa ka dhalanaya dhibaato caafimaad. gabadha waxay bilaabay inay isla hadasho. depression la qof ku dhacayo isla hadal uu bilaabaya. isla hadalka markuu bilaabo ilaa marka dambe hadii uu ku sii socdo ee tagto qofka inuu waasho ama waali ku dhacay. marka waalidaas gabadhaas ku dhacday iyo jugta iyo dhibaatada soo gaartay iyo ninka hantidiisa dayacantay iyo gurigiisa waxaas oo dhan maxaa sabab u ahaa guurka la isku qasba sabab u ahaa. marka saameyntiis way badan yihiin laakiin saameynaha ugu waaweyn ama dhibaatooyinka ugu waaweyn waxay soo gaaraan gabadha. dhibaatada ugu daran oo soo gaari kartana waxaa waaye qofka inuu isla hadlo isku buuqo ilaa marka dambe heer waali ay gaarto laga yaabo markaas kadibna inay noloshii ay isdhaafiso oo dadka aan muslimka ahayn oo kale markii depressionki waxaas uu ku dhaco inta badan waxay sameeyaan way isdilaan. laakiin markii kale oo maxaa la lahaa dadkan Soomaalida iyo waxay u badan yihiin qofkii ina aragtida soo isla hadlaayo waalida dhaqanto waa lagu dhahayo waxyaabaha uu ka qaadan waxay dhibaato ka soo gaarto qof uusan rabin ku qanacsaneen nolol ahaan in waalidkii ay ku qasbeen oo guur qasaba uu galay. marka saameynihiisu way badan yihiin intaas ku soo kooba. markan iyo ka qaybgalaha labaad waa Ayaan Maxamuud Cabdi. Ayaan soo dhaw su'aasha aad weydiin lahayd sharci yaqaan Ismaan Cadceed. bismillaah magacaygu waa Ayaan Maxamuud Cabdi. su'aasha ustaadka weydiinayana waxaa weeyaan
maxaa keena in gabdhaha guurka lagu qasbo? sababaha keena in gabadha guurka lagu qasbo way badan yihiin, waxayna ku xiran tahay hadba waxa uu waalidkaas ka damacsan yahay. laakiin anaga hadda Soomaali markaa joogno, sababaha loo xusho waxa ugu weyn dhinaca dhaqaalaha ugu weyn oo la dhaho gabadhii ama waalidka iyaga waxa siiyo qofkii, ama haba u arkaba waalidka in gabadhan ninkan uu dhaqan karo dhaqaale ahaan markii loo fiiriyo, taas ugu weyn. waaga hore way jiri jirtay qofka geesiga ah oo kale in gabadh la siisto, way jiri jirtay qofka culimada ah oo qofka aftahanka oo garyaqaanka ah oo kale iyo in gabadh la siiyo. qof maxaa la dhahaa gabdhaha mararka qaarna waxaa lagu bixin jiray labada qabiil markay isdagaalaan oo kale inay godob reeb waxa la dhihi ajiri jirto, sida aysan labada qabiil haddana aysan isku qabanin in gabar la siiyo oo isguursadaan colaadda meesha lagu damiyo la dhihi jiray. marka waxay qayb ka noqon jirtay heshiiska la dhex dhigaayo maxaa la labadaas beel, oo maadaama haddii dadka ay dad xidida noqdaan oo xiriir yeeshaan waxaa yaraanaya inay isweeraraan ama dhibaato isku geystaan. marka waxaa jirta marka sabab keenayso in gabadhii guurka lagu qasbo waalidku dhinacaas keeno. laakiin dhibaatada ugu weyn waxaa dhihi karnaa oo keena in gabadha guurka lagu qasbo inay tahay dhinaca dhaqaalaha ama financialka, waalidka oo u arka mararka qaar gabadha inay qaadanayso maxaa la dhahaa joyce qaldan inay qaadan karto ama dooq qaldan oo meesha ay rabto iyo meesha waalidka u rabo, mararka qaar meesha waalidka u rabo oo macnaha ay u fiican tahay. marka way keeni kartaa taas, sababahaasana aan isleeyahay way ugu waaweyn yihiin. waa hagaag. markan waxaan soo dhaweynayaa Ciise Maxamed Nuur. Ciise, soo dhawow. su-aasha aad weydiin lahayd sharci yaqaan Cismaan Cadceed. adaa u mahadsan tahay. marka hore magacii waa Ciise Maxamed Nuur. waxaa weydiin lahaa ustaadka, haddii ay gabadhu go-aan ku gaartay in ay doorato qofkii guursan lahaa uuna waalidkii ka hor istaagay, maxaa dhacaya? Ciise, waa mahadsan tahay. su-aal muhiima waaye. waalidku hadday gabadha iyada inta doorato maxaa la dhahaa qofkii guursan lahayd waalidka ay ka hor istaagaan, maxaa dhacaya? laba meela u fiirinaynaa. waalidka mar waxay u leeyihiin maxaa la dhahaa xaq inay ka hor istaagaan, sababtoo ah god ujeedid in ilmahaaga ay ku dhacayaan mararka qaar inaa ka qabatid la rabaa. joyce ama dooqa mararka qaar ilmaha ama gabadhaada wuxuu ku ridayaa god. waa goormee? markii gabadha qofka ay dooranayso uusan ahayn qof ay ku xulatay diin iyo dhaqan iyo wanaagsan aan lagu aqoonin, oo waalidka ay u yaqaanaan qofkan inuu yahay qof xun. haddii ay u yaqaanaan waa marka ay ku saxan yihiin waalidka inay ka ilaaliyaan, hadhowtina wax laga weydiin doono maxaa la dhahaa ilmahan iyo sidii guurkooda iyo dhibaatada soo gaarayso. marka waxay ku qasban yihiin markaasoo kale inay ka hor istaagaan. laakiin waxaa jirayso qofkii gabadha ay doorato haddii uu yahay qof akhlaaq leh, diin leh, maxaa la dhahaa gabadhii bixin kara oo hayn kara oo macnaha dhaqaale ahaan wixii ku baxaya hayn kara, guurkeeda in laga hor istaago waalidka uma fiicna ay ka hor istaagaan. haddii saas ay sameeyaan waxaa ka dhalanaysa gabadhii inay baxsato oo ay la baxsato wiilka ay la baxsato, dhibaatooyin badanaa ka dhalanaya. marka ani waxaan dhihi lahaa waalidka qofka uu ilmahooda soo doortay ha qiimeeyaan, ha fiiriyaan. haddii qof xun uu yahay lagulama talinayo in waalidka ay u ogolaadaan, sababtoo waxaa og tahay macnaha ama dhibaato aa og tahay inaa ilmihii ku fasaxdid waxaa waa dhibaata ka imaanayso. haddii qof wanaagsan uu yahay, diintiisa wanaagsan tahay, dhaqaale ahaan kaafin kara gabadhan, hayn kara oo maxaa la dhahaa nolosheeda dabari kara guurka kadib, inay waalidka u ogolaadaan guurkana u fududeeyaan. waa tahay. markan ka qaybgalaha ugu dambeeya waa Xasan Cumar Faarax. Xasan, soo dhawow. su-aasha aad weydiin lahayd sharci yaqaan Cismaan Cadceed. bismillaah, magacii waa Xasan Cumar Faarax. waxaan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ka soo qayb galo. ustaad Cadceed iyo asxaabta kalena waan salaamayaa. su-aasheedu waxay tahay, sidee loogu dhiirin gelin karaa bulshada inay ka qayb qaataan dhowridda iyo difaacidda xaqa haweenka ee doorashada qofka guursanaya? xasan, waa mahadsan tahay. runtii Soomaali markaan joogno shaqo adaga noo taalo markay taas imaato, because of waxaan ugu badan guurka la isku qasbo, inkastoo uu hadda soo yaraanayo. waxaa aaminsanahay waxaa lagu dhiirigelin karaa qofkan inuu qofkiisa xusho. marka koowaad waxaa waaye in wacyigelin badan la sameeyo, bulshada
laga wacyigeliyo dhibaatooyinka ka dhasha guurka la isku qasbo. Practical ahana oo aragnay waxyaabo badan oo maxaa la guurar badan oo la qasbay iyo dhibaatada ka dhalatay iyo familka soo u burbura ka aragnay. Marka waalidka in marka hore loo sheego guurka qasabka ah iyo saameynta uu leeyahay in la baro lagu wacyigeliyo. waxaa loo isticmaali karaa marka anagoo media dhaxmareyna warbaahinta dhaxmareyna inaan wacyigelintaas aan gaarsiino ubadka maxaa la dhahaa inay saaxiib dhow la noqdaan waalidka waa sabab kale soo marka qofka saaxiibka ah marka wax u sheegaysid at least waxaa taqaanaa sida wax looga dhaadhiciyo. laakiin hadaa waalidka kala fogtihiin oo aadan asxaab dhow aadan ahayn way kugu adkaanaysaa inaa waalidka wax u sheegto ama aad ka dhaadhicisid. marka waalidkina u sheegtida dhahdid aaba guurkan aad igu qasbaysid waxyaabahaana ka dhalan kara qofka ii doortay dhibaatadan ama waxaan saameynahan xun u leeyahay taas waxay dhalin doontaa in gurigeena uu burburo in dayac badan uu imaado. marka waxaan ka codsan lahaa inaad maxaa la dhahaa aad dooqaas ka laabatid midka aan keenan ila fiirisid. marka waxaa keenayo sheekada noocaas oo waalidka iyo ubadka dhaxmaray xiriirka friendshipka ama saaxiibtinimada dhaxmaris. marka waalidka marka koowaad waa ilmaha inay saaxiib la noqdaan waalidkood. wacyigelin waa inaan sameynaa oo bulshada dhan aan gaarsiinaa. dadka hadda educated u barteen dad wax bartay u barteen marka waxaan rajaynayaa inay iska soo yaraan doonaan. laakiin wacyigelin badan ay nooga baahan tahay in aan dhiirigelino laga doodo meel walbo la jooga la dhaho burguurkan la isku qasbo iyo waxa ka dhalanayo balan isla fiirin. marka fiirino hadda guurka qasabka ah waxa ka dhashay ma la dhihi karaa in gabadha ay la baxsato qofkii ay rabtay oo ay masaafo sidaas ku aadaan sidoo kalena wuxuu qayb ka yahay burburka qoysaska ma la dhihi karaa? aad weyn waxaa qoysaska inta badan oo baabaa fiiri oo kala taga wuxuu ku leeyahay qofkaan rabitaankayga awalba kulama joogin oo lagu qasbay. waliba waxaa daran mid labada dhinac la qasbo. mararka qaar gabadha bas lama qasbay labada dhinac la qasbaa. familada heshiiyaan labada dhinac ay isku keenaan ay isguursadaan Allah wax dhaqaayana run ahaantii waxa waaye wiilkii iyo gabadha wada nool waa ma ahan wax dhaqaay familkii banaanka jooga ma aha because fiyaga iska xog ugaarsan. taas waxay sababay marka in isfaham waa daran uu imaado in maxaa la dhahaa kala shaki uu imaado guriga inuu burburo. gabadha marka hadii la qasbo oo la geeyo maxaa la dhahaa qof aysan rabin lagu daro mararka qaar waxaa sababi kartaba dhacdooyin la arkayna ay jirto in ninkii maseer dartiis laga yaabo inuu u dilo. sababtu maxaa waaye waxyaabo badan iyada uma qabanayso tashwiish iyo shaki waxaa ku furmaya marka in xiriirka hore ee gabadhan ay lahayd inay wali leedahay. taas marka wuxuu sababayaa in maseer iyo dhibaato ay imaato gabadha nolosheeda inay dhibaato meeshaas ka soo gaarto. su-aasha ay weydiisay qoysaska ma ku burburaa? of course qoysaska burburay way u badan yihiin. midda labaad in masaafo la aado oo gabadhi ay la baxsato qof kale hadhowtina ka dhalan karta masaafada waa naqaanaa qofku markuu gabadha la baxsado oo meesha ku geeyo waxay noqonaysaa hadhowti inay ka dhalato hadday isqabtaan awalba banaana kaa wato inuu ku dhaho iyada naftirka hadhowti haddana dhibaato kale ku noqonay gabadhi. marka gabadha inay dhibaatadaas u bareerto jidkii ay marto dhibaato ku noqoto hadhowti markay isqabtaan lasoo maxaa la dhahaa awalba jidaa kaa wata la dhaho problem kaloo noqonaya. waxa sababayna maxay ahaa guurka lagu qasbayo marka waxyaabahaas oo dhan uu sababaa iyo midda aan hadda aan sheego in dhibaato nolosheeda dhanba soo gaarto uu sababi karo. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii tusmada sharciga oo aanu maanta ku eegnay xuquuqda haweenka ee ku aadan doorashada qofka guursanaya. waxaa nagala qayb galay asxaabta kale ah ciise maxamed nuur, zamzam cabduqaadir ibraahim, xasan cumar faarax iyo ayaan maxamuud cabdi. waxaana marti ku ahaa barnaamijka sharci yaqaan cismaan cadceed. intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan kaga tegaynaa sidaasi amaana Allah. ma gurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax